kulankani oo ahaa casho sharaf iyo isbarasho ayaa magaalada Oslo loogu sameeyay dhalinyaro ka imaaday UK kaasi oo hogaaminayay gudoomiyaha dhalinyaradaasi Axmed Goole waxaana si heersare ugu soo dhaweeyay magaalada Oslo Xasan Cabdalla oo ah siyaasiyiinta da'da ee sida weyn looga yaqaan wadanka Norway iyo sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed Norway Mudane Cadnaan Cabdulle. dadkii ka soo qayb galay kulanka cashada ayaa uga mahad celiyay dhalinyarada Soomaaliyeed Norway sida wanaagsan ee ay u soo dhaweeyeen walaalahooda ka yimid wadanka UK iyadoona dhankooda ay kaga mahad celiyeen dhalinyaradii ka yimid wadanka UK soo dhaweynta loogu sameeyay magaalada Oslo. ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay siyaasi Xasan Cabdalla waxa uuna faahfaahiyay casharabtaani iyo isbarashada qiimaha ay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed Norway iyo kuwa UK. Bismillahir Rahmaanir Rahiim kulanti wacan oo wanaagsan soo dhawaada dhamaantiin idil ahaantiinba dhalinyaro meesha aad fadhidiin waa maqaayada Dayax ama bulsho gogosha taalo waa gogol dhalinyaro soo qaban qaabiyeen gudiga dhalinyarada ugu horeeya gudoomiyaha Cadnaan iyo dhalinyarada ka qayb qaadatay dhamaantiin waa mahadsantiin. waxaa ka cudur daaranaynaa dib u dhaca iyo farsamo xumada iyo maxaa la yiraahdaa waqtiga ugu talagalnay barnaamijkeena inuu noo bilaawdo inuusan noo bilaabanin ujeedka gogoshaana waxaa soo dhaweynaynaa 3 dhalinyaro oo nooga timid magaalada Birmingham ee wadanka UK. 3daas nin waxay ka tirsan yihiin maxaa la dhahaa gudiga sportska ee magaalada Birmingham waxaa hogaaminayo Axmed Goole oo ah madaxa sportiga ee magaalada Birmingham runtiina ah coach muddo badan ka soo shaqeeyay arrimaha sportska dalkii hooyo magaalada Hargeysa shaqo ka soo qabtay Mareykanka shaqo tababarnimo ka soo qabtay wadamada Carabta wadamo ka tirsan ka soo qabtay sidoo kale waxaa la socday Maxamed oo asagana coach ah oo maxaa la yiraahdaa asagana magaalada Hargeysa tababar ka soo noqday waxaa naga maqan runtii oo taba maanta tababare Muraad oo uga hambalyeynaya halkan oo asagana tababare ka noqday kooxda Elman magaalada Muqdisho shaqo u tagay nasiib wanaagna helay. waxaa sidoo kale nala joogo injineer oo abaal badan u haayo Maxamed oo double master ah magaalada Birmingham wax ku bartay. intaa kadib waxaa ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed Norway Mudane Cadnaan Cabdulle waxa uuna ku dheeraaday sida ay ahmiyadda u leedahay isku xirka dhalinyarada. marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa guddiga qabanqaabada oo qabanqaabiyay xafladan quruxda badan oo aan ku soo dhaweynayno walaalaheen reer Birmingham abaal badan ay nagu leeyihiin intaan in ka badan ay naga mudnaayeen laakiin annaga xoogaa degdegna waa nagu ahayd oo waqti badan uma haysan inaan soo dhaweyno sidaan si ka qurux badan aan jeclay insha Allah laakiin waa isla joognaa waan isu soo laabanaynaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. soo dhawaada walaalahay dhalinyarada inta wax soo qabanqaabisana waa u mahad celinayaa sidaan ay si ka fiican aan nagala rabaa mar walba naloo yimaado oo wadamo kale nagala soo booqdo. waxaan rajaynayaa inaad noo soo noqnoqon doontaan insha Allah tacaala intaan kuma ekaanayso si fiican oo u sheekaysanayna waan isla sii joogaynaa. si gaar waxaan ugu mahad celinayaa Xasan oo asaga har habeen u taagnay dhowr jeer igu soo noqnoqonaysay u dhacdo soo dhaweyntaan waa mahadsantahay Xasan adinka bis ma ahane qof kasto inta maatan saan soo dhaweynaa intaas aan rabaa inaan ku soo gabagabay maanta hadal badan ma jiro waa sheekaysanayna waqti fiican oo wada qaadanayna insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. soo dhawaada. Mudane Axmed Goole oo ah gudoomiyaha dhalinyarada UK ayaa dhankiisa kaga mahad celiyay casharafta iyo soo dhaweynta diiran ay u sameeyeen walaalahooda reer Norway waxa uuna sheegay in ay marna ilaabi doonin. marka hore Ilaahay ma ku mahadnaqay inaan xaq wada joogno magaalada Oslo caasimadda Norway marka labaadna waxaan ku xigsiinayaa nimanka oo sidan aad ugu wanaagsan noo soo welcome gareeyay Xasan iyo Sadiq Cadnaan Mr. Maxamed Suldaan Sareer kanay wallahi intaan joogay Norway wow it's been very good markayna qoto dhinaca Soomaalinimada businesska wax lagu farxo la sheegtiin waxaan ka iman magaalada Ingiriiska waxna loo arkay refugees dad waxna haysan adeeg ugu badan tahay waxa la arkay waa 3 dukaamood والله أنت نشوف دكان والله ذلك سيد دكان صومالي ولا حاجة شيء أو سو هذا والله حاجة نقول وتشوف وسط إنجليز كنا بملقوار كيا وحنا هذا نكون كدر يعني حويا سوالي لماذا
soomaalinimadu waxaad u qaalisan waxaan of course qabyaalad baa qabsatay laakiin soomaalida yaa xagan jooga oo meel joogay 1 year qof Soomaaliya never arkin wallahi mar waxaan joogay magaalada China Beijing ku xiga sanadkii aan joogay qof Soomaaliyeed aan arkay ma jirin Soomaalinimadu waa wax aad u qaalisan wax aad lagu farxo mar walbana waxaan qabyaalada hadda walaalkay Maxamed Xasan waa best friend kayga waxaan garanay 20 sanadood maalin walbana waan wada joognaa imse meelood baan isugu qaadanay mar walba neef ma iska harno laakiin haddii ay noqoto dhinaca siyaasaduna different baan noqon mar walba waxa ugu horeysa waa soomaalinimadu waa walaalnimadu waa diinta soo wax aad u muhiimsan dhinaca sportska waxa la dhahay waa gudoomiyihii sportska kubadda wax badan oo aan ka shaqeynay dhinaca kubadda waxaan intaan fadhiyayna waxaan xasuustay wallahi hal one player kaliya un baa ka ciyaaray Premier League of Somalia only one player yuu yahay Saan Ibrahim heer Norway soo laacibiintii xaggan bay joogeen ya Ingiriiska waxaad arkaysaa wiilal badan oo xariifiin oo laakiin markay noqdeen 15 jir 16 jir ay ka hareen laakiin maadaama Cabdisalaam Ibrahim uu xaggan ka yimi from Norway u ciyaar Manchester City oo Premier League ka ciyaaray amiis xaggan wax fiican baa lagu wadaa yada intaan joogayna mar walba Sadiq baa inoo sheegay mar walba waxaan ciyaarnaa Norway against UK mar walba naga naga badiya so hadda laakiin waxaan rabaa dad culus haddii la socdo dad culus baan keen lahaa waxaan wada ciyaar lahaa xaggan baan ku wada ciyaar lahaa laakiin insha Allah way fiicnaan lahayd inaan haddii aan wada ciyaarno 11 side haddii chance la helo but insha Allah wallahi intaas oo hadalka ma talagelin but thank you very much dadkii ka hadlay ayaa ugu dambeyntii ku booriyay dhalinyarada UK in ay ku soo laabtaan marar badan si ay isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Norway iyo UK ay wax badan uga munaaqashoodaan asalaamu calaykum salaam horta kulligeena brush wanaagsan Nivina la dhahaa waxa ahay dhalinyarada ka mid ah reer Oslo haddana masha Allah business-na waa haystaa marka inkastoo hadalka isku fiicnaan kamarada marka la hor keeno laakiin waxaa leeyahay welcome soo dhawaada dhalinyaradeena soo dhawaada magaaladiina waaye mar walbana garabkiina insha Allah kulankan dhalinyarada iskugu imaadeen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay sida gudoomiyaha nagu casuumay gudoomiye Cadnaan iyo dhammaan dhalinyarada inteeda kale iyo inta qaban qaabisaba waxaan wadaa laba kelmadood ah midna waa dardaaran oo ku saabsan dhalinyaranimada dhalinyaranimada ma ahan wax waqti walba taagnaanayo waa in yar oo qofka bini aadanka haysto waxaana mudan inuu qofka waqtigiisna ka faa'iideysto waa wax qofka bini aadanka hantida ugu weyn uu haysto waa yani waqtigii waxa laga yaabaa bari hadaadan ka faa'iideysanin inaad ka shalaydo marka taa waa dardaarmaya oo qof walba waqtigu horyaalaa qof walbana waxaa loo baahan yahay in uu yani wax ka qaato sida hadda meeshaan iskugu imaado kulankan quruxda badan qof walba fikirkiisa uu wax ku darsado qof walbana qofka walaalkiisa ah inuu wax taro dadka bini aadanka intaan dunida joogno wax kaliya u baahanaa waxaa waaye inaan wax istarno noqoto wax istarka wax muuqda ayna ahayn wax dhalanteed ah oo laga hadlo taas waa number 1 dardaaranka aan wada waxay tahay wadan waxaa joognaa oo maasha Allah yani wax badan aan ka qabsan karno hadda dhanka Soomaalideena oo kale especially gabdhaha Soomaaliyeed waxaa leeyahay dadku ugu waxtarka badan waaye oo anima liidayo maanta ragga laakiin haddana iyaga wax barto iyaga wax qabto iyaga hadda gabdhaha Soomaaliyeed iyaga jaamacadaha iyo meelaha ugu sare ee wadankan ka jooga dhalinyarada raggeena Soomaaliyeed waxaan dardaarmayaa iyaga tartan inaan la galno gabdhaha oo tartanka ma ahan wax ceeb ah oo waxa waaye competition in dadka ay wada tartamaan waxay soo baxaysaa dadka inay aqligood iyo yani fikirkooda iyo yani wax badan ay ka imaado qulubtooda waxaan leeyahay in wax la bartan wax aad u wanaagsan waaye ee bulshadana yani meel la ka soo saaro wax kaliya aan intaas ku dar lahaa inaan la tartamo aan loo joogsan oo qof walba oo yani fikirkiisa iyo waxtarnimadiisa iyo inuu soo bandhigo dhammaantiin kulankan ay ugu casuunteen aad u maasantiin oo markii ugu horeysay meel public ah maaragtay aan ka hadlo marka sharaf ay tahay